waxna soo dhawaada dalku waa dalkiini dadku waa dalkiini waa kii aad halganka dibadda uga jirteen maanta waxa sharaf noo ah maatinka halka aan ugu timaadeen run ahaantii wax weyn bay anaga noo tahay ragii talada goyn jiray intay dunidu taagnay ragii taaj ku saarnaa ragii toban kuno faraa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة كل واحد السلام يا أدارك السلطان سعيد وقاشة وحجرتك تدك الرماها بالشبكة كشقية معمولك دجمدة هير قبل إذا مضى بوليس يملتري بقى لأن سولوي أرتب ما تسيي مكوال من الله والمصلحات. مرة بعد شرف بولية أما مالين بولية تحي inaan garabkiisa fadhiyo suldaanka guud Suldaan Saciid oo in badan aan naawilay inaan qasrigiisa imaado inta badan waxaan arki jiray adeerkii Cabdullaahi Yuusuf halkan ducada u soo raadsaday wata maalintii rag iska reeyaan ducada soo raadsaday marka koobaad marka labaad suldaan booqashan ku yimid suldaankaygii waa tahay majrici ugu dambeeyay baa tahay meel walba naga taagan tahay waxay daarnay doorashadayadu aan waddanka ku nimid guushii aan ka gaarnay deegaankayagii dagaal ka socday iyo urkuulgeyda doorashooyinkan iyo dimuqraadiyadan iyo arrimaha socda inaanu indhaindhayno bal laakiin safarka gooniga noo ah ee baran baa wuxuu ahaa aragtida suldaankayaga iyo ducadiisa maasha allah ilaahay waana nabad keenay allah mahad leh suldaanka mahadsan asaguna oo nagu soo dhaweeyay si sharaf loo milgale mar labaad waa saddexaad bitaankiidu aan ku leeyahay fariin yar oo laysoo dhiibay haddaan kugu darana intaan boosaalka soo maray dadku waxay lahaayeen war suldaanka waxaa naga gaarsiisaa dhalinyarada soo wax u hesho wannan ma food waxa la yihahdo anaga la shaqeey taasina waa igu fariin aniga ma oran marka suldaan waa dhownahay waa kaaga mahad celinaa soo dhaweyntaada haddii la ku rooyahay waan u mahad celinayaa dhammaan degmada iyo maamulku siday loo soo dhaweeyeen iyo shacabkuba mar labaad saddexaad reer baran waxaan ayagana si gooni ugu mahad celinayaa halgankii lascaan laga galay sida uga qayb qaateen iyo sida uga dagaalameen iyo siday dhiigga ugu horeen degmadan baran ayaan si gooni aydan ugu mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu insha allah dib iska waraysan doonaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kabtanka iyo xildhibaanka iyo axmed fool cadde iyo mataliyaha madaxweynaha inta halka maanta inoogu timi waan idin salaamayaa waan idin soo dhaweynayaa waxna soo dhawaada dalku waa dalkiini dadku waa dalkiini waa kii aad halganka dibadda uga jirteen maanta waxa sharaf noo ah maatinka halka aan ugu timaadeen run ahaantii wax weyn bay anaga noo tahay sharaf bay noo tahay miidiya iyo waxba ay hawada la isu marinayo laga wada xidhiidhayo laakiin maanta practical ahaan bay u joognaa waa ku mahadsantihiin doorashadiina dalkana kolba gobollada oo dhan waa mari doontaan waxaan ilaahay idinka rajeynaynaa guul iyo sharaf iyo magaca ku leedihiin dadka iyo dalka bulshada dhexdooda magac sharaf weyn baa ku leedihiin aad baana idinka ugu mahadsantihiin waana idin soo dhaweynaynaa doorashada iyo safarka noogu timaadeena waa idinka mahad celinaynaa soo dhawaadaan idin leenahay dalku waa dalkiini dadku waa dadkiini waa dadkii aad u halgamayseen waa aad miidiya fariimaha iyo talooyinka u soo marinayseen marka aad baan idin soo dhaweynayaa kabtanka gaar ahaan generaale soo dhaweey dalka ku soo dhaweey dadkaaga iyo dalkaaga waa u timi wax badan baa halgan iyo taariikh iyo ka qayb gashay tan maanta fariinta shacabkana oo dimuqraadiyadda lagu soo faranaa dadkoo dhan baynu wada sheegaynaa gaarsiinaynaa waana ku mahadsan tahay fariintaada waana soo dhaweynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.